sida wareysigana ku jirtay oo bixiyo gudoomiyaha waxa kamid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay ee qalbi dhaga xabsiga laga soo saaray in gaariga lagu soo qaaday adiga aad ku jirtay arrimahaasi sidaas ma u jiraan dadaale waa mu'amaraad waxaas fareem gareynaa wax mu'amaraad la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal gareeyaan aaminsana wayahay dhanka kale waxaa jira kulan abdi xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaatay iyagoo xog doon ah arrintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo abdi xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa ay sheegaysaa abdi xaashi oo sheegay kulankaasi maxaa lagu hadashay arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida abdi xaashi u sheegay inaan madaxweynaha aniga inta la weydiiyo waxaas aan sheegnay waa run been ma mukashalaynaysaa xariga xubnaha madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga afiyaan rabaan ku yiri laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax ku dhiisan oo fiisaha in laga caawiyo dawladda Ethiopia loo dhiibo oo raali ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinay in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan laf inay golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argixisada oo aan laf xamar ay ku martiqaadaan qalbi dhagax xamar ay ku martiqaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo aan lafna ay fursad u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garanti iyo argixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan